السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإن سلام صاحبيال عيد مبارك سو دوادا kusoo dhawaada Somali Community College oo ala uga barateen cashar ku saabsan barashada luqadda Englishka. Maanta cashar waxaan in wada muhiim ah oo ah ciwaankiisu singular and plural. Singular waa wax mufrad oo kaligiis ah, plural waa wax jamac ah oo badan. Tusaale waa haddaan dhaho gabar, gabdho, wiil, wiilal. Okay. marka Englishka marka bedelaysa xarafka uu jamac isu bedelayo wuxuu leeyahay qaacidooyin gaar ah oo loo maro dhanka grammarka. insha Allah waan marka cashirkan dhamaysato wax badan ayaad fahmi doontaa hadii Ilaahay ka raali noqdo. Marka kusoo dhawaada cashirkan ayaan bilaabaynaa insha Allah. To make a regular nouns waxaa la yiraahdaa magacyada caadiga oo isbedelaynin markii plural iyo jamac loo kala bedelayo aan isbedelaynin qoraal ahaantooda. Regular nouns waa regular waa iska caadi. sida tusaale ahaan kan ugu imaan doonto marka wuxuu yiri regular nouns plural. marka regular nouns ka plural ka dhigaysid add ss bas ku daraysaa to the end xaraf gadaashiisa. tusaale ahaan cat, cats. hadda cat waxa isbedel ma la qoraalkeeda waa regular waa iska caadi, s bas ku daraysaa plural ayay noqonaysaa. House, houses. Okay, taas waa singular nouns marka ka dhigaysid plural. If the singular nouns haduu singular nounka and a singular nouns ka haduu ku dhamaado s double s sh ch x or z add waxa ku daraysaa es ayaa ku daraysaa to the end dhamaadkiisa to make it plural saad uga dhigto jamac. tusaale ahaan tras double s ayay ku dhamaatay waxa ku daraysaa es. intaan xaraf reerka ama isku qoray haduu xaraf ku dhamaado waxa ku daraysaa es. fahanteen ayaa rajaynaya. pass, passes. mash, mashes. lunch ch ku dhamaatay lunches. tax x ku dhamaatay taxes. plate, plates. marka xarfahan qal reer ku qoray haduu erey ku dhamaado waxa ku daraysaa simply es ayaa ku daraysaa. okay, taas waa qaacidada koowaad. in some cases singular nouns ending in s meelaha qaar haduu singular noun haduu s ku dhamaado or z haduu ku dhamaado require wuxuu u baahan yahay that you will double the s ta laba ka dhigto or z ama z ka laba ka dhigto to add the es aad ugu darto es for pluralization of adoo ka dhigay plural. tusaale ahaan double z ku daraysa gas, gases. okay, if the noun ends with f haduu xaraf ku dhamaado f ama fe the f ta is often change waxay isu bedeshaa badanaa ve ayay isu bedelaysaa marka laga reebo meelaha qaar oo imaan doonto ilaa 5 xaraf wax ka soo haro. before adding the s intaad s ta ku darin ayaad f ta ka dhigaysaa f ta ku bedelaysaa to form the plural fission si u noqoto jamac. wife, wives. wife hadda waxay ku dhamaatay fe intaan s ta ku darin fe da ayaan ve u bedelnay s ayaan ku darnay. wolf f ayaa ku dhamaatay sida hadda inta kusoo sheegnay haduu xarafka f ama fe ku dhamaado v ayaa f ta u bedelaysaa ve s ayaa ku daraysaa. exception marka laga reebo intaan xaraf ilaa 5 xaraf marka laga reebo marka 4 xaraf oo ah roof, roofs sida waxba ka bedelaysa. belief, beliefs. chief, chiefs. chief, chiefs. intaan marka laga reebo xaraf kasta oo f ku dhamaado v ayaa u bedelaysaa v ayaa f ta ku bedelaysaa es na ku daraysaa. hadda fe ku dhamaatana fe di meesha f ta v ka dhigi es ayaa ku daray. The singular nouns ends in y and the letter before the y is consonant. Consonant waa soo marnay abc da waxay u qaybsantaa consonant and vowels. Vowels waa a e i o u waxay ka soo haraya la yiraahdaa consonant.
marka hadduu xaraf if the letter before the y hadday consonant tahay change the ending to ies aa ku daraysaa to make non plural saa uga dhigta plural. tusaale ahaan city y-da hadda waxaa dhinacan ka xiga waa consonant, so maxaa ku daraysaa ies. puppy y-da waxa dhinacan ka xiga hadda waa consonant, waxaa ku daraysaa ies. marka waxaan lenahay ies maxaa lagu daraa markay y-da dhinacan ka xigto xaraf consonant tusaale ahaan t b iyo xaraf kaloo consonant hadduu dhinacan y-da ka xigo waxaa ku daraysaa ies sifa uga dhigta plural. qaacidada kale, if the singular noun ends in y, hadduu singular noun ku dhamaado y and the letter before the y is vowel aan soo sheegno waa a e o u, add an s aa ku daraysaa to make it plural saa uga dhigta plural. tusaale ahaan race y-da waxaa dhinacan ka xigo waa na waa vowels, s ayaa ku daraysaa marka. hadda y-dan waxa dhinacan ka xigo waa o waa vowels, s ayaa ku daraysaa. asxaabi cashirka uu dheer yahay 2 cashir ayaan ka dhiganaa part 1 iyo part 2. intaas ayaan kusoo gabagabeynaa cashirka koowaad. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. channelkan subscribe ha laga iloobin.